الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشغول بدك بعد وصول لابتي وحن مشغول كوها إذا شيء ما يواجه ورا هاي سواء يرسعتين. I am come back هذا شوفوا بدن بعد عيامات والله يشوفوا يا ديار هذا صومك هلا حرت صومك هلا حرت وهدول استاذ يا حسن الشيخ محمود يا على الكيس وقلمد وحلفدي قلمد وكتشدي يا هاي محانا لك الربع دولة دوال قصد دولي حقي كنعضي معارض معها وحان وقرن دميز حسن شيخ محمود حسن منافق سافري سمانت منكو هياي وكدول استاغ يا مانت wax kastana waa ku wadsoonadana waxaan cadeyn lahayna way iga reebay alcadaala wasiirka warfaafinta ee wiilkii jeer weyne ka dhacay booska iyo kiisa ku sidkan ee madaxay furan tiktok radana ayana waa u yeeraya waxaan leeyahay kaala idin kaala point waa idin ku hayaa maanta dhiiqa idin ku hayaa way dul istaagayay hal kalo fariinana oo baaqana dhalinyarada beelweyta harti ee media isticmaasha media halka kaga jidhay ayaan halkan hal eray dhihi doonaa fariintaasna gaanba idinku tahay gaarsi waxaan ku hormaraya xasan sheekh maxamuud xasan oo hadlaya waxa uu yiri sida tan ana uga jawaabay cid kale uga jawaabi mayse waxa uu yiri halkan muxuu ahaa hebela xaq ka dhacay hebela tuug ahay hebela kan ahay oo rasan iyo baar aan lahayn oo hadii lagu qabsado sharciga lagu horgeeyo lagu cadeey wax aad ku hadashay adan cadeey karin dadka Soomaaliyeed waxaan rabaa inay ogaadaan meelaha ay ducfiga ku leeyihiin si ay isaga soo qabaan hadaadan ogeyn ducfigaaga wariga madaxweynuhu horta waxa uu sheegtay khudbadu waa dheerayd calaacal badan baa ku jiray in la mucaarado inay khalad tahay hadii la ku rooyay waana la caayaa buu leeyahay aflagaado madaxweynaha xasan sheekh oo 67 jir sanadiisu tahay madaxweyne horena soo maray waa ninkii media la taagnaa farmaajo naagaad fudhay baad ilma ka dhalaysa sida markaan leeyahay de luqada xamar looga hadlo I don't know laakiin gobolada aanu ka imid iyo gayiga Soomaali dhaqanka yaalaahi raggu inta wixii ka sareeya waan iska xifaareeya ama ka wada hadla waa xudunta wixii ka sareeya wixii ka hooseeya kama xifaaltamo iskama dacaayadeeyo kama kaftamo adoo madaxweyne soo maray baad ilma ka dhalaysa hadalku waa margi waa dhinac loo jiito dad badan oo Soomaaliga dhibayana waa jiraan ninkii waxa sameyn jiray mucaaradnimada teamkiisa inta adaablo dhihi jiray farmaajo waa mareexan ayaa maanta nooga sheekaynaya mucaaradnimadu inay wax xun tahay arskud madaxweynuhu sidoo kale waxa uu ka hadlay kelmad ah tuugnimo midda aan raba maanta inaan ka jawaabana waa midda ilma adeerayaal fariintaasi qaanba idinku tahay iga gaarsiiyay madaxweynuhu si sheekaray madaxweynuhu wuxuu yiri tuugnimo nin hanti dawladda dhacay kii qariya waa tuug wuxuu yiri kii adii la ku reeyay mas'uul dawladeed oo qariyana waa tuug kalkal markaanti baan kaaga ahay hanti dawladeed wixii dhacay inay tuug waliba ku xun yihiin laakiin madaxweyne bas dadkan shacabka dhageyso marwadayadii weeye waa marwo Soomaaliyeed waa marwadii qaranka markay dadkii ummadii Soomaaliyeed xoolahoodii iyo dhulkoodiba halkaan gelisay oo xagga gelisay oo saa dambiil ugu guratay shaatigaagana ay wax ku dhacayso adiguna aan la ogtahay adiga naagtaada maxay kugu yeernaa madaxweyne adiga naagtaada maxaan kugu yeernaa madaxweyne inaan ku cayna marno inaan ku gafna marno maxaad raali ka tahay adigu oo aan kugu yeernaa su'aalan ku weydiinay shacab weynow maxaan ugu yeernaa waxa ooyaya waa hooyo Soomaaliyeed ila qabiil maaha adiga kula qabiil ma bal laga yaabaa in asay qabiil tahay waxa laga dhacay dhul banaan oo dawladdu lahayd oo xasan waagi hore iyo naagtiisu dhaceen farmaajo yimid oo ka soo celiyay oo dadkii dajiyay kadib buu soo laabtay isagoo caraysan oo yiri farmaajo waa tagay aan soo laabtay yaa ay ka celinaya naagtii baa u timid islaantiisa u timid cagaf bay gelisay
وإكس كنترول بكل الأرض وأكوا هويين سوماليات بأوية meelay caruurta geystaan ma haystaan madaxweynuhu waa kii u dhaartay dadkan wixii dayacan inuu meel geyn lahaa xaq wuxuu u leeyahay qofkii Soomaaliya muwaadin Soomaaliya dayacan hadduu waayo meel u geeyo inuu soo kaxeeyo dhaho madaxtooyada ila deg waxa uu leeyahay waa hadii damiirku shaqeynaya weyn caalamka dawladdu maxay oo adeegaha shacabka weligaa ma aragtay dad la leeyahay dhulkii dawladda waa laga saaraya dhul lama haystaan meel deegaana ma haystaan wax geel loo saaraya marka miyaysa dalka u dhalan yaa xil ka saaran yahay haddaysan xaalad dawladeed ku jidhay oo haddii aan la ku roon yahay laga saarayo yaa xil ka saaran yahay inuu baylahda ka xareeyo dadkan u dhaartay ma qabiilkeeda u dhaartay xasanaada u dhaartay islaantaadii weeyana waxa dhulkiina gadanaysa haddii aan la ku roon yahay dadkiina dayacaysa adiga islaanta maxaan ku yeernaa marka tuug tabada goysa oo aan islaam ahayn oo munaafiqa in lagu yeero afkaagaad raalle iga tiri adaana yiri tuug waxaan ahayn laguma yeeri karo adiguna tuug baa tahay islaantaaduna waa tuugo ee ummadda dhibka ka daa madaxweyne mana u dhibsanaysaa madaxweyne ku sacbin mayno kataa sagaalida ku garaacmayn mucaaradnimada shalay markaad mucaaradka ahayd ee aad farmaajo waama reexaan kacaad lahayd intii aad oran jidhay ka badan oran mayno bal qaybtood waa la xishoonaynaa qaybtood waa la xishoonaynaa naagtaada isfudheen iyo ilmaha ka dhashay ku oran mayno xaasha wajud waa wixii aad oran jidhay adu naag qabta ilma ka dhalaysa madaxweyne aad oran jidhay annaga ku oran mayno balse waxa la xadayaan u jeedno gacantaan kugu tilmaamaynaye madaxweyne isku xishood madaxweyne yaxya 4 sano hal sano ay barba hadda sii gudubtay ma waxa rabtaa inaan ugu dhamaysid adoo khudbaynaya in waqtigu dhaco hebel waa toog heblaaya tooga hebel waa toog musuqmaasuqana dagaalamayna oo musuq adu ka hadlo adu ku dhabaad yaal dagaalamaysa madaas dagaalamaya madaxweyne madax bas ka dhufad intaas jan adu madax isgo tu ka weyn ma jiro islaantaada dumar kale islaantaada ugu tuugsan oo ugu big ah ragana ugu tuugsan sababtoo adaa shaati ba ku dhacaysa shacabku ay ka baroonaya anagu waxaan ma joogo muuqaal lama soo duubin islaanta ooyaysan hooyaday ma aha adayba ku xigtaayo aday qabiil kula tag balse xaq baan u leeyahay inaan u hadlo warkeedana fogeeyo oo aan ku soo gaarsiiyo madaxweyne tuuganimada guriga ay ka bilaabanaysaa musuqu guriga uu ka bilowdaa islaantaada tuuga adigii baa tuuga gabadhaadii baa tuuga wiilkaagii baa tuuga sodohada tuuga sodoga baa wixii adaa isku meeray madaxweyne adoo xishoonaya marka dadku waa dad wax fahmaya waa ku yaqaanaan in hebel ku yaqaan in culus way ku yaqaanaan familkaaga yaqaanaan magacaagii shaadkaaga wax lagu dhacaya ama dhihi kara maanta islaanta wax dhacaysa ma ogi hooyada qaylinaysa ex control ka qaylinaysa warkeeda ma maqlin ama dhahaysa inta hadda dhahaysid soo hadal hadii kalena tuug aan nasab ahayn ee umro dooxa ee hadii aan la ku rooyahay aan waxba reebayn ee ayaxa ee dirindira ee kud iyo qanca baata ilaahay baan marxaan gashanaya in shacabka Soomaaliyeed inaan dambi laga qorayn inaan tuug ku iraahdo adiguna tuug tahay islaantaadu tuuga tahay kala labayn mayo intaan adiga ku raali galin lahaa shacabka inaan raali galiyaan xaq u leh xasan marka khudbadaadii intaasaan ka iri tuugan adiga ahayna ma jiree marka hore adigu iswaani isxisaabi kadibna umada xusheeg sanadkee laba sano wax dhimaan ku hadayna waxaad ku talagashay ku dhameysatid khudbad xagee ka dhacday tuug ba xaga maray xagee ma tuug ma aragtay ma nugu dhameeyo waa anaguna marka dhuusid baahan soo dhigeen mucaaradkaas ay ahayd mid lamid aan nahay waliba waa ka naastahanahay annagu waxaan garanaynaa dawladnimada iyo mucaaradnimada iyo adiga shakhsiyadda aan kala saarayna Soomaaliya mucaarad kuma ahay dawladda khawaarijna u soo raaci mayo sidii shalay MBB du khawaarijta oo la safnaayeen anu khawaarijta leeyahay inta saxasan leeyahay ku si fogaan mayo العدالة waxay u yeedhaan u yeera iyo madaxa ay furan waxay soo bandhigeen shalay sadaraad video waxa lagu soo qoray khawaarij waa baaxsooynaayay khawaarij waa jabtay ma af iyo niiko ba khawaarij lagu jibinaya waa kana
ayadoo screen shootan ka qaadayna alcadaalo soo dhigay iyo heelada madaxay furan video ay ku faanayaan boorta video waa kane ila daawo ay ku faanayaan waa tahay videoga marka la soo bandhigay oo MBB da loo qaybiyay oo la leeyahay Soomaaliya khawaarij baan ku abaasanayna videogaasi YouTube ku jira asagoo 5 bilood ka hor 5 months ago ay ku qoran tahay channel Kenyatia ayaana soo gashtay Kenyana waxay ku faanaysaa inay qolo terrorist argagixisa ay la dagaalamayso ayadana cadaynteed marta cadaynteedii ma laga rabaa mise waxa la leeyahay beenta way waxaan ku haysta shaqadiisa ma aha asagu waa TikToker kale ninkaan la socday shaqadiisa ma aha asagu warfaafin yaalkaas nin buu kursi xoo kaga qaatay oo taneero miskiino asagu warfaafinta inkastoo warfaafintu ay tahay tan propaganda rabta inay ummadda kaga dhiciso 2023 baa la joogaa toban jirku wuxuu haystaa telefoon loo yaqaan beer salaax ama smartphone inta leeg videoga markii soo qabatid abdana waxa jira tracking saa u gelinaysid oo asalkiisa meesha laga lahaa keenay adduunka hormaray baa la rabaa Soomaaliya in miidiyaheedii hadda kor waxaan dhageystay Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo mar uu la hadlay cadaalad lahaa niyow Ayuub iyo Cabdiqaadir Boos iyo in la dhageysto ayuu markaas waxa jalis ba ku jiray maxaa loo dhageystaa markaas halka soo dira in la dhageysto waxa keenay ayagu xaqiiqada u dhow yihiin idinku TV qaranka idinku ah baad been faafisanbi hadaad been toojisaan idinka la dhageysanay yes been isma alcadaala wuxuu rabaa hadar inuu dadka dhiciyo videoga waxa keenay madaxay furan baa keenay alcadaala u dhiibay waxa uu leeyahay waxa umada kala dhicisa in al-shabaab la dagaalamayn oo al-shabaab aan baabiinay al-shabaab cararaya dhaay waa Kenyaati saxirsanay Kenyaati saxirsanay argagixisa hadii la dagaalamayo ana diyaar u ah inaan la dagaalamo adduunkan argagixisa aanu nacba alcadaala iyo madaxay furanba ana ka nacba argagixiso laakiin si daacad aan la diro argagixisa in la dagaalamo media laga dagaalamo anaga ay kala shaqeynayne dagaal daacad la imaad madaxay furan oo aan arkay isagoo teera ku dhahay wariye teera oo barnaamijkii argagixisada wax badan fashiliyay sheegay in ciidamada la shirqoolay la shaqeynaya anaga dhanbanu eedeynaya jamac asaga si gooni uma eedeyn media inta mucaaradka ah argagixisada la shaqeynaya lama shaqeynayno wasiir khibrada argagixisada ku dagaalanta marihid Bilal Bulshawi iyo adigu isku shaqaatay wasiir ma waxa ay gala dhicinaysa ummadda arda u sheegto ummadda Soomaaliyeed ninka miskiinka TikToker ah codka gabdhaha leh bacaleera cayrsaday caleere 17 sano 16 sano khibrad dagaal u leeyahay faad shaqo sidoo kale Ahmed Diris sidoo kale xaqada ka wada hadalnaa ruma sheegaynaa ka gaban mayna anigu maxaa rabaa argagixis loo dilaa yaa dilka argagixiso dilaa experience ile islaan dhaxal soo qabaan oo sirka shaqada ka dhigaya ilaahay ku dhaashay islaan dhaxal shaqada maxay isdaamaan iyo dadka diyaar ku rooya ku haya anaga TV anaga fiyoda noo keenaya TV-da Kenyaatiga ka soo qaadanay video waa soo qaadanaysid wiil adoo kalaaba duubtay khibrad dagaal leh channel ah wadanka difaac ayaa duubtay wadankaaga difaaco teera waxa ku eedeynayay in diyaar ku argagixisada taageer ma u taageerin waxa uu sheegay fashalka ciidamada qoodin iyo xeladin iyo xiniintiin halkaas saraakiil badan baa ka daawanaysa khibrad ciidan leh muuqaaladii argagixisadu soo galisay anu ma jeclana adeegsado dib u raaco daawada waxba ii sheegay maanta waxba ay tusaya ciidamadii halkaa lagu baabi'iyey baa ay tusaya ilaa 10 xero baa midkiiba waxa lagu dilay 200 ciidan oo ciidanka Soomaaliyeed waxaad fiirsaa xeryahaas dhahashikooda fiiri wali ma aragtay ciidan even nooca istiraatiijiyad ciidan kasta Google garay adaa aqoon lahayn hadii kale dhan sirkaada waa taqaana wixii ciidan way luqad garanayaan wali ma aragtay ciidan la dhaxdajinayo
kayn xiran oo 10 mitir qof ku jira aadan arki karin ciidan xiran looga sameeyay ma aragta hadda sarkaal tahay bal muuqaalka al-shabaab ka daawo meesha ay baabuurta ku gubayaan ee waa bariga ciidan ku soo weerareen waa kaymo dhexdood ciidan waxa arki jirnay istiraatiijiyad meel banaan daga difaac xirta xerada difaac tarajayn loo xiro meel wax laga arkaa ciidan la geeya ciidan xero xiran jeexa dhexda degay meel biyo mareen degay oo jeexa dhexda miyaan ciidanka qoodhaay xerada iyo xiniinta aan la mashmin yaa dajiyay waxa dajiyay laga yaabay in walaalkay madaxa ay furan iyo waxa la midka ciidamada loo dhiibay laga yaabay in is ayaga xumaan ka ahayn ee waa khibradooda aqoontooda ayaga al-shabaab aan u dhimay al-shabaab tiin laakiin markaan leeyahay waa la mishimay mishinku aqoon darro iyada mishin keenis waxaan aqoon lahayn haddii la ii diro ayadaa mishine askariga marka kaynta dhexdeeda biyo mareenka jiqda la dajiyay ee uu hal mitir wax ka arki karin in askarigaas inta loo yimid ala saydi isha waaga saman lagu bilaabay muxuu arki karaa muxuu iska difaaca wuxuu arki karaa kaliya qofka halka mitir u jiro arki karaa qarax iyo hal mitir qarax kala kac miyaa la mishmin waxaa mishintay marka ama aqoon darraa mishintay ama waa loogu talagalayo markii la yiraahdo hal la dagaal galo oo qof aan aqoon lahayn ciidanka loo dhiibo waa ciidan loogu talagalay jibi adduunka horaan idin sheegay adduunka fiiri waxaad fiirisaan wasaarad kasta oo difaac oo adduunku leeyahay fiiri garbacas baa fadhida anigana madaxay furan maantooka baa ii fadhiya marka ha iga dhaadhicinina madaxay furan baa dalka xoreynaya ninka la yiraahdo cali dheere oo 17 sano kayn ku jira fuaad sangolo 17 sano kayn ku jira oo mawduuxa baa wiilka ayakaayo tiktok ma diyaarad busana diyaarad noqto kaso xulay arka xaso ogaada uduba hoos qona hogi ma baay war ma furin baa tagaysa xabeen sheegaysa isku soo duubo oo soo ku finiya hadalkee ummadda haddaad wax qabad iyo argixisaan layseen usoo bandhigaysaan kuwa idinku qabataan noo soo dira annaga youtubada kenyaatiga iyo adiyaalka ugandayska ha noo soo sawirinina annaga idinka horeyna intaasaan leeyahay ninkaa gaaban ninkaa dheer isdaba socda ee tiktokrada intaasaan leeyahay waxaan kusoo koobaya hadalka halkii qodobka ugu dambeeyey oo fariin ah oo fariin dhalinyarada beesha hartiya waxaan arkayay maalin dhaweyd anigu aad iskaga mashquulsanaa waxaan arkayay ciidamada sool ka dagaalamaya oo kale saraakiisheeda oo kale oo la canaananayo xaq baa u leedihiin canaanta idinkama soo horjeeda canaanta xaq baa u leedihiin laakiin ma adeeraya mid ku xisaabtama meesha ciidan baa jooga rag baa isku haya kuwa kale oo kaa soo horjeedahay waa ciidan iyo rag technical nooc kasta meesha taalla saraakiil baa joogta ku kalsoonaada saraakiisha shaqadeedii haysa ku kalsoonaada madaxweyne aan yeelanay guddoon baarlamaan baan yeelanay golo bahalki baan yeelanay golo baarlamaan baan yeelanay madaxweyne ku-xigeen guddoomiye baarlamaan intaasaan leenahay intuba kama lexda jecle badnin intuba wayna la arkayaan haddii ala ku roogay dagaalku inuu daba dheeraaday marka ku xisaabtama midna directionna waa insiinayaa Russia oo dunida ugu awooda badan ayaa waxay soo weerarday Ukraine bay soo weerarday hal sanay la maraysaa de Russia ala calays mi aragteen ku haysan maxaa nuclear baa haysta hal daqiiqay daminka dhacay oo dhan meesha yiraahdo muxuu ahaa bay'ada ay ka kooban tahay meesha la yiraahdo Ukraine hal saac maaha 10 daqiiqana maaha 10 daqiiqana maaha hal daqiiqo daqiiqadaha alla kamid ah buu bay'ado dhan hawada ka saari karaa dagaalku hal sano la maraya marka saraakiil baa idin joogta hadalka waa idin dadayaa saraakiisheena aan ku kalsoonaano wax fiican baa socda shaqo fiican baa socota maamulkii baa shaqada la wareegay madaxweynaha shaqada la wareegay shaqada madaxweynuhu markuu la wareegayo dee waa difaac iska tirabatay intaasoo awaamiirtooda magacaabistoodii sidii hore loo dagaalgelimayo qabiilka waa laga baxay wixii oo dhan waxbaa isu dabiridayaa ilmaha reyaalo degdeg waa camal shaydaan madaxweynahaas shaqada la wareegay aanu ku ixtiraano oo haddii alla ku rooyahay aanu ka dhowrno wax badan baan idin ogahay degdegan iska daayay fariintaasna iga gaarsiiya walaalahay dhammaan
inta halgankaasi dhabta ka yahay ee jecel inay guulaystaan ee jecel in dhulkan laga xoreeyo cadawga dul fadhiya aad baan idin salaamayaa SC waa xoroobaysaa harti waa xoroobayaa dhulkaas waa la xoreynayaa haddii alla ku roo yahay guushana idinkaa leh oo hantiyaysaan laakiin isdajiya oo cadawgiisu idinka faa'iideysan aad baan idin salaamayaa